wararka aynu ka helno magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in kulan balaaran ay leeyihiin madasha mucaaradka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. kulankan oo maanta ay ku yeesheen Villa Soomaaliya mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu gorfeynayaa xaaladaha ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale sidii loo heli lahaa doorasho ka dhacda Soomaaliya. madashan mucaaradka oo laga baxay samata bixinta Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynaha hore ee dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha hore dalka Soomaaliya sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ayaa waxay maalinkii saddexaad kulamo balaaran ay ku leeyihiin Villa Soomaaliya. kulankaas oo la rabo in laga hadlo xaaladaha cakran ee ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalanka kooxda argagixisada. waxaana kulankan ilaa haatan ay si dib joog ka tahay warbaahinta wali war sax ah kama soo bixin. waxaa laba kulan oo hore oo Villa Soomaaliya ku dhaxmaray madasha mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana si rasmi ah looga salgaarin xaaladaha kala duwan ee ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale sida rasmiga ay uga dhiciyaan doorashada Soomaaliya. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayna ku rahaynaa in hooy dastuurka Soomaaliya ay wax uga bedeleen madasha mucaaradka Soomaaliya ayaa arintaasi ka biyadiiday in hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo siyaasiyiin kala duwan iyo wasaaraha hore dalka Soomaaliya ay xilligan rabaan in dastuurka Soomaaliya uu wax ka bedel ku sameeyay madaxweynaha haatan talada joogay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka biyadiideen. kulamo balaaran oo maanta ay saxaafadda dibad jooga ka tahay ayaa wali waxa uu ka socda Villa Soomaaliya. kulamadaas oo looga hadlayo xaaladaha ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha cakran ee ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale sidii loo heli lahaa doorasho loo wada dhan yahay. kulankan ka socda Villa Soomaaliya dibad jooga ka tahay saxaafadda wax warar kama soo bixin. waxaa jira laba kulan oo hore oo dhaxmaray madasha mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ilaa haatan aan warar rasmi ah laga soo saaray laba dhinacba waxa ay isla gaareen. kulanka balaaran ee haatan sida rasmi ah uga socda Villa Soomaaliya ay leeyihiin madasha mucaaradka oo hogaaminayo madaxweynaha hore ee dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale wasaaraha hore iyo madax kale hore oo soo martay siyaasiyiin hore oo soo martay Soomaaliya ayaa la filayaa inay ka soo baxaan warar rasmi ah maadaama labada kulan ee hore ee ku dhaxmaray madasha mucaaradka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aan wax warar ka soo bixin. kulankan ayaa dhagta loo taagaya waxyaabo ka soo bixi doona maadaama kulamadii hore ee labada kulan ee hore dhaxmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madasha mucaaradka Soomaaliya aan war rasmi ah oo san ka soo bixin. warbaahintu kulankan dibad joogaya ka tahay waana kulan gaar ah oo ay leeyihiin madasha kulan gaar ah ay leeyihiin mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa la filayaa saacadahan soo socda ayaa leeyahay kulankaasi inuu ka soo baxo warar rasmi ah iyo sidoo kale go'aamada ay isla gaareen xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madasha mucaaradka oo aad moodaa inay maalmihii ugu dambeeyay ay dhiilo culus u jeedinayeen madaxweynaha muddaxileedkiisu sii dhamaanaya Xasan Sheekh Maxamuud. madasha mucaaradka ayaa sheegay in hore uga hadlay warbaahinta waxayna sheegeen in xilligan aysan si rasmi ah aysan doorasho cod iyo qof uga dhicin karin Soomaaliya.